sanadka 2021 iyo barnaamijka soo gasho oo guuleyso abaalmarin dhul ah soo gasho oo guuleyso waa barnaamij runtii cusub waana la socdaa macaamiisha sida aadka ugu farxayna waa kamid ahay waana soo dhaweynayaa warbaahinta iyo miidiyahana waan ka daawaday barnaamijkaas waxaan qabaa inuu yahay barnaamij xilli loo baahnaa ku soo beegmay oo ay shirkadu macaamiisheeda jeclaysatay inay wax dib ugu celiso waxyaabaha ay shirkadu dadka u soo bandhigtayna waxa kamid ah sanadkan ay kaga duwan tahay barnaamijyadii hore inay bixinayso dhul ay dadku degaan taasi oo aan u aragno inay tahay mid muhiim u ah oo waxyaabaha ay sanadkii hore bixinayso waxa kamid ah gaadiid iyo waxyaabo kale qalab kale lagu guuleysto laakiin sanadkan waxa ay shirkadu u bedeshay in ay dhul bixiso marka inaan ka mid noqdo macaamiisha ku guuleysatay dhulka oo helay inaan ka mid noqdo aad iyo aad baan ugu rajo weynahay aad iyo aad baan u jecelahay waana soo dhaweynaa waana isticmaalnaa waa barnaamij fiican loo baahayay waa Soomaaliland u baahan dadka dhan u baahan shirkadda soo gal waa shirkad caalami ah international oo Afrika dhan ka shaqeysa waana ku faraxsanahay in ay shirkadu ku soo celisay dadweynaha wax isla markaa waxaan soo dhaweynayaa barnaamijkan cusub dadkuna aad iyo aad waxay u hambalyeynayaan shirkad wixii ay laga isticmaalay dib dadka ugu soo celisay oo wali hanti maguuraana u soo celisay oo siinaysa haddii uu qofku ku guuleysto oo dhula barnaamijka waxaan ka mid ahay tartamayaasha barnaamijka soo gasho ku guuleyso waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo guuleystayaasha barnaamijkaas aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay mujtamaca magaalada Hargeysa waan soo dhaweynaynaa barnaamijka soo gasho guuleyso si wacan baan ula socdaa warbaahinta oo dhan baan ula socdaa waana barnaamij muhiim u ah bulshada runtiina waa waxyaalahan jeclahay inaan shirkadda macaamiisheeda ka mid noqdo saan barnaamijka iyo adeegeeda aan uga faa'iideysto aad iyo aad baan u maqlay waa barnaamij wanaagsan dadkana wax weyn u qabanaya waana soo dhaweynaa isgaarsiinteena soo